dagaalkii xargaga oo ahaa 54 ilaa maanta mas'uuliyadeeda waxa lagala wareegay dawladii istaba joogay ee daaroodiisa marka ahaa awla naga amaankeeda ilaali jirnay haddaanu nahay waa magaaladan nimanka la yiraahdo Muuse Ismaaciil dhibaataduna aanay waxay ay xidho iyo waxay baabiiso iyo faqriga gaajo iyo dayac waxaan hayn male iyo qof walaalkaayo dhinta iyo mid dhaawacma haddana saasay tahay si kastoo la isu dilo goor ay ahaato waa la heshiin marka way walaalka haysaseegina magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag 48 saacadood ee u dambeeyay waxa laga soo warinayay xaalado la xiriira dhinaca amniga waxaana deegaanka goof ee koonfurta gobolka Sanaag lagu dilay 5 nin oo reer goofa kuwaasi oo ay dil u geysteen dablay hubaysan oo ka soo jeeda koonfurta gobolka Sanaag haddaba dhacdadaasi dhacdo la xiriira ayaa magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxa maanta ka dhacay dil loo geystay nin ganacsada oo reer Ceerigaabo arintaasi oo salka ku haysa aanada qabiil kadib markii dablay hubaysan ay deegaanka goof maalinkii shalay toole ay ku dileen 5 nin oo reer goofa si kastaba ahaatee dadweynaha ku dhaqan magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag oo telefishinka Universal wax ka weydiiyay xaaladda amni ee magaalada Ceerigaabo iyo gobolka ayaa bulshada oo la hadlay Universal waxay ugu baaqeen in ay amnigooda ay ilaashadaan isla markaasina ay meel uga soo wada jeestaan wax kasta oo khatar ku ah bulshada walaalaha reer Sanaag ee Ceerigaabo wada degan magaalada horta hadir waa nabadgelyo qabtaa wax dhibi kama taagna wixii saaka dhacay wax ka dambeeyana ma dhicin hadir nabadgelyo wala isdhex maraya dadku magaalada si wacan bay hadir isaga mariyaan si wacan way u degan tahay ilaahay waxaanu leenahay fidmada hay naga qaboojo nabadgelyadana ilaahay noo adkeeyay baan leenahay wixii fidmadooda waxaanu leenahay war fidmada naga daayay bilaa intii hore hayno ahaato bilaa dambeeyay dhicin dadkuna sida biyahooda macnaashahooda macnaaska wada cabin alxamdulillah rabbil caalamiin waxaanu leenahay ilaahay naga qaboojo dhibaataduna aanay waxay ay xidho iyo waxay baabiiso iyo faqriga gaajo iyo dayac waxaan hayn male iyo qof walaalkaayo dhinta iyo mid dhaawacma haddana saasay tahay si kastoo la isu dilo goor ay ahaato waa la heshiin marka way walaalka haysaseegina iyadoo kolleyba dhibaatadu in kastaba ha socotay aakhirasee mooyaan waxa la wax kale oo ay leedahay faa'iido ay ma jirto in kastay socotay in kastoo ku dhimatana haddana dadku beer kala aadi maayaan كلي بقى ليش تصور نقولنا يا دكتور وده شو جيان ودبعتدو وحوي وتشحوم يلاده قرابة ده تقول سابا يلاده فقر يضيع بيلاده قفت شعريضه وحكتار الهاوي تشابه يلاده مركب حوي دتكو نرشي كفروي xaaladaha munaasabka ahayna wala garanaya meeshay salka ku hayaan iyo meeshay ku socdaan iyo ujeedadooda la fahansiyaa dadkan dambe alxamdulillah rabbil caalamiin wixii ka dambeeyay 1992 ama 1991 ama 1990giba bulshadu waa bulsho qaangaara wax fahansan dadka reer Ceerigaabo wax fahansan ama yarko ama kooda yar noqoto ama kooda weyn noqoto ama daada dhexe jiilka dambe waxa noqotay niyo waxaan baran lahaa dadkan gobolka jooga ee madaxda ah ee waliba moogtahay hogaamiyaasha malaynay hurdaan baan u malanayaa garan maayaan sida loo fikirayo gobolka goor sida tan noqday we don't know the waxaan la yaabay mugti waayo gobolku sidan ma ahaan jirin dad baa u talin jiray dad baa talada ahaan jiray deegaanka dad baa waxa weeye laga amar qaadan jiray marka laga yimaado maxaa la yiraahdaa waxyaabaha institutionada kale okay marka waxaan u lahaa maanta nabadu fariintan diraya de walaal way cadahayo gobolku horta fariintiisu deyn lagu soo cesho nabadgelyadii qaabku gobolku markii hore ahaan jiray kala dambeyntii lagu soo cesho maxaa la yiraahdaa dhimashadan iyo dhaawacyadan waxa la dhimashadan faraha badan dhacaysana iyadana in la soo afjiro dadkii la isugu yeero ma ahayn dadkii wax weeye colaad sida ay socoto marba waxa weeye la yiraahdo halka wax lagu dilay sidana wax lagu dilay dadkan waxa wadana waliba qolada waxaan leeyahay maxaa la yiraahdaa qoladan dhulbaantina waxaan leeyahay warniyahu idinkuna shaydaanka iska naara de gobolka rag baa u taliya oo niman baa jooga mas'uuliyiin bay leedahay iyo deegaanka iyo wixii la halmaalaba marka waxa weeye nabadgelyadii gobolku sidoo ahaan jiray ha lagu soo cesho dhacdana dhibaato lagu ma sii kordhiyo hadda waa la soo soconayaa oo dhibaato kale dadku aad moodaa inay dadweynuhu sii kordhinayaan laakiin waxaan leeyahay nabadgelyada iyo amniga halla ilaasho wixii ilaahay ugu talagalay inay dhintaanna waa dhinteen yeelkeeda dee amniga halla ilaashadaan leeyahay la yiraahdo waan macnaa qaan in badanna waa arkay daadayduna imika waxay maraysaa 87 jir ilaa dagaalkii xargaga oo ahaa 54 ilaa maanta
mas-uuliyaddeeda waxaa nagala wareegay dawladihii isdaba joogay ee daaroodiisamka ahaa awalla annaga ammaankeeda ilaalin jirnay haddaannu nahay waa magaaladana nimanka la yidhaahdo muuse ismaaciil maantana wax alla wax bilaa oo ka dhacaya ma jiraan kale fidna ceergaabo ka dhacaysa dagaalla ka dhacaya kama dhacayaan waxba kama dhacayaan Said Qurbaawi telefishinka Universal ceergaabo